aan ku horeynay qarax ayaa magaalada boosaaso lagula beegsaday gaadiid galbinayay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni inta la xaqiijiyey 2 askari ayaa dhimatay iyadoo 4 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dhowr qarax oo kale ayaa dhowaan ka dhacay magaalada boosaaso oo lagu wado in dhowaan ay ka bilaabato doorashada xubnaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maxamed xasan dhalo ayaa faahfaahinta warkan inooga soo diray magaalada boosaaso. inta la xaqiijiyay 2 askari ayaa ku dhimatay 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay BBC-da u xaqiijiyeen laamaha ammaanka ee gobolka Bari. qarax kula kacay afaafka hore ee magaalada Boosaaso mid ka mid ah gaadiidka ciidan ee ay saaraayeen ilaalada madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni xilli madaxweynuhu uu magaalada soo galayay kadib safar dhulka ah oo uu ku soo jiray 3 bari ka gadaal jarmaadada Isigarowe uu kaga soo kicitimay. qaraxan ayaa imanaya 2 maalin uun kadib markii goob ganacsi qarax lagula eegtay guurtii magaaladan u joogay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni soo gaaritaankiisa maanta ee magaalada Boosaaso ayaa noqonaysa markii ugu horeysay tan iyo intii uu dhacay dagaalkii Boosaaso ku dhexmaray BSF iyo ciidamada kale ee Puntland. safarka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ee magaalada Boosaaso ayaa sidoo kale imanaya iyada oo magaalada Boosaaso 2 bilood ee ugu dambeysay ee ka dhaceen ugu yaraan 5 qarax. madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni waxa magaalada Boosaaso ugu dambeysay sanadkii hore xilli uu yimi magaalada tan iyada oo xilligaasi la weeraray jeelka magaalada kaas oo ay sheegteen weerarkiisa ururka Al-Shabaab. maxamed xasan boosaaso. mahadsanid maxamed xasan dhalo.